runtii waa wax lagu farxo gabadh odageedii afar hees oo saddex ay banaanka taale oo heesaha dunida u kaysan ka mid noqotay midna ay iminka soo socoto odageeda u samaysa oo wax lagu farxo sababto waxay tahay annaga dumar haddaan nahay jacaylka xataa waa qarsanaa odaga naqaba xataa uma sheegno inaan jecelnahay soomaalida garan marka adigu waxyaabo badan oo qurufaad oo dadku bulsho ahaan la iska aaminsan yahay ayaa na yara xayiraaya marka horta waa wax lagu farxo taas laakiin jacaylka guud fintaay maxaa ka aaminsan tahay adiga أنا waxaa aaminsanahay jaceylka hadii qof kula qaado wanaagsan oo fahmi kara la helo inuu nolosha number 1 ka yahay taas aaminsanahay adiga marka waa inaad qabiil jacaylka xagiisa u noqoto gabdhaha Soomaaliyeed Soomaalida garane waana ogahay oo group bihabi la dhahayo oo aan leenahay ayaad waxa ku taabtay bihabi masalana السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سلام كدب دمان داودياشيدا دنيا دعالده ايا لا خريره meel kasto ay joogan qaaradaha adduunka salaam الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ayaan idin leeyahay salaan dabadeed barnaamijkayga maanta waxaan ugu talagalay ama barnaamijkaygan maanta waxaan ugu talagalay mahadnaq ballaaran oo aan u jeedinayo saaxiibaday marna walaashay Aamina Muuse Weheliye mahadnaqaas aan walaashay u jeedinayo oo aan ugu talagalay inaan barnaamijkayga YouTube-ka ugu horeeyo ku bilaabo taasoo iga kasbatay aan leeyahay walaal qaali marka ugu horeyso waan ku salaamay si kale laaba marka xigtana waxaan ku leeyahay thank you very much ama aad iyo aad u mahadsan tahay sidii wanaagsanayd aad igu soo dhaweysay baraha bulshada oo aad u suurta gelisay inaan asxaabta baraha bulshada aan ka mid noqdo adigoo igu soo dhaweeyay waliba barnaamijkayga ama qorshayga aniga aan laa aad iyo aad gacan igu siiyay waraysiyo qurux badan iga qaaday igu soo dhaweeyay xarunta degan tahay ee magaalada Birmingham magaaladaas Birmingham oo si fiican igu soo dhaweysay oo walaaltinimo ah oo wali program qurux badan iga qabatay adoon waxba iga bedelaneyn oon waxna iga sabanayn ama aan igu dhaqaale doonaneyn aad iyo aad igu tiri welcome walaalo soo dhawo aad si fiican waraysi qurux badan oo tafatiran wali dhinac walba ah aad iga qaaday ana waxaan kugu sharfay maanta inaan barnaamijkayga YouTube-ka ugu horeeyo oo live ah oon soo gelinayo ugu talagalay inaan adiga kugu xuso inkastoo aan ka cudur daaranayo aanan si caadi ah kaamirada u soo gelin haddana codkayga maadaama uu soo galay inaan kugu bilaabo adiga oo ku yiraahdo walaal qaali waad mahadsan tahay mahad ha ka gaarto allana ha ka abaalmariyo wanaagaas badan ee aad samaysay asxaabta qaaliga ah waxaan doonayaa in halkan ka faahfaahiyo wanaagaas aadka oo ii soo jiitay ana aan ku karaameeyay inaan barnaamijkayga ugu horeeyo oo ka cod ahaana anigoo subscribe-ka hadda inta la doonay xogaa intaan ma wada gaarin laakiin aan hadda live soo geli karo asxaabtaydaas iyo ii wada suurta gelisayna thank you ayaan idin leeyahay dhamaantiin waa idin soo laabanaya laakiin waxaan hadda aad iyo aad ugu sharfay saaxiibaday qaali inaan marka ugu horeeyo ku iraado walaalo aad iyo aad kumanaan jeer ayaad mahadsan tahay daacadaas iyo wanaagaas iyo ixtiraamkaasna aad iyo aad ayaan kugu hambalyeynaya inuu ilaahay qof sharaf leh ka dhigay aad iyo ma soo koobi karo mahadnaqa gaarka ah oo aan ku hayo laakiin waxaan ku leeyahay kaaga filan ku leeyahay dunida daafeeda meel walba aan mahadnaqaada laga maqlo iyo wanaag iyo sharafta aan ku hayo inta dabadeed aan ku fiicanahay barnaamijkana fare kama qodna insha Allah taala wixii hadda ka dambeeya waxaan jecelahay waxyaabo badan inaan soo kordhin doono hore adaa buuga sheekeeyo faahfaahiyay waxaan ahay waxaan soo wada intaba wax aan ku dardara mooyaan inta badan adaaba soo gudbiyay marka farxad ku noolo asxaabtayda qaaliga hadaan idin soo jeedsaday idinkana kuwa suurta galiyay oo inaan maanta halkan live aan ka soo galo suurta galiyay idinka ugu badan hadaydan idinka subscribe siin lahayn anu live maan soo gali lahayn mana awoodi kari lahayn laakiin waan jecelahay inuu inta ka sii badan doono oo kumanaan iyo malaayiin u gaari doono insha Allah taala anigoo jecel inaan media u adeegsado dhanka wanaagsan oo ka soo horjeeda dhanka xun tale iyo tusaale wax kasta oo aan idinkaga experience badanayn inkastoo maamooyin iyo aabayaal iga waaweyn la heli karo haddana intayda aan soo joogay ay arag ayaan ahay wixii wanaagsan oo macquul ah oo tale iyo tusaale ah insha Allah taala waxba lama gaban doono waana soo kordhin doonaa wixii xunna ilaahay naga hayo iyo sheedaanka intaba
carabkeena allah xifida intaan dunida ku noolahay aakhirana meel wanaagsan dhammaanteen allahayna mariyo insha allahu tacaala. aadmi qalad lagama waayo. Wixii qaladana dee waan ka cudur daaranaya, waxaan leeyahay wixii baraha bulshada iga soo galo qalada, inkastoo aan ku taxadarayo oon aad iyo aad uga feejignaanayo oon jecelahay wixii wanaagsan un inaan ku hadlay. Ileen hadalka hadlayso afkaadu soo maraya, maskaxdaadana uu soo maraya, caqli haddaad leedahay waxaaba loo baahan yahay inaad u iskontaroosho intaada iska qaylinin. Marka intaani karaankayga ah, intaan caafimaad qabo, waxaan jecelahay waxaan ku hadli doono inaan insha allahu tacaala ka fiirsan doono. Wixii wanaaga oo ay diintana noo fasaxdana aan soo gudbin doono, wixii xumaanana insha allahu tacaala intaan ka oran karo aan oran karo. Waxaan tabar u waayana dee aan ka aamusi doono insha allahu tacaala. Inkastoo ayaantan dambe ay soomaalida u badatay wixii xun in la faafiyo, teena anaga noo taala marka inaan xumaan faafino ama qof walaala aan ku fognaano ama danihiisa aan ku irsaaqa doonano, ilaahay ha inaga kafiya ayaan leeyahay. Inaan qof islaam ah xumaantiisa oon baahina aan anaga irsaaqad ku doonano, ilaahay taas ha naga kaafiyo oo wax ka kheyr roon hana siiyo. Marka insha allahu tacaala dadka baraarujiya ma ahi, dadka u dhuun daloolana ma ahi, dadka ku fara dhuudhuuban oo aad iyo aad u raadiyana ma ahi, wararka dadka kale inay ku macaashaan dadka jecel ma ahi. Inta aan noolahayna insha allahu tacaala ilaah subxaana watacaala aan ka magan galay inaan qof anigoo kale ah ceebaalkiisa iyo dhibaatadiisa aan intaan meel soo geliyo aan views ka raadsado, ilaahan insha allahu tacaala ka magan galay. Taasna aniga iyo inta igu fikirkaaba waxaan leeyahay idinkan insha allahu tacaala ilaahay idinma bado. Wixii hadda ka dambeeya waynu wada joognaa dhammaantayo. Dee wixii programkayga wixii xiiseena iyo wixii aad ka heshaan halka hoosaad kolley iigu qori doontaan, ama asxaab badan oo si gaar ah ay la xiriirta way jiraan. Asxaabta kalena iyagana waa u fasaxan tahay maadaama meesha ay YouTube tahay, qof walba wixii uu doono uu halka hoose kusoo qori karo, firiina ay u tahay. insha allahu tacaala welcome waxaa laga sugaya waa idinka iyo baraarujin iyo inaan hawsha sii wado. Qofka haddii aan lagu dhiirigelin wixii uu asaga doono, sida hadda walaashay Aamino Muuse Weheliye ii soo jiidatay oon halkan uga mahadnaqayo boqolaal jeer oo iigu soo dhaweysay inaan hawshayda hore u galo, iyadoo weliba aad iyo aad iigu hambalyeysay. Marka insha allahu tacaala haddii sidaa aad la iisoo wada dhaweeyo dhan walba, waxaan jeclaan lahaa inaan hawsha sii wadi karaayo. Laakiin haddii asxaabta ay kugu soo wada jeedsato wixii aad haysid waad ka hanjabaysaa oo dib baad uga dhacaysaa. Marka halkan wixii soo dhaweyna idinka idiin daayay, ana wixii horumara insha allahu tacaala dhankayga waan ka wadi doonaa. Hilmaan hadalku ma jiro, igamana istaahisho inaan ilaawo walaashay qaali oo suurta gelisay inaan iyadana halkan aan abwaanad sheegan ka noqdo. Farduuso xasan ahay, farduusan VIP si kale laaba ayaan u salaamayaa fanaanadeyda qaaliga ah dhanka iyo Boorama ama Somaliland. Waxaan ku leeyahay walaalo qaali, adigana aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Ii soo dhawow malaayiin jeer, si kale laaba ayaan kuu soo dhaweynaya, waanan kaaga mahad celinayaa inaa erayadeeda intaad qaaday aad masrax la soo istaagtay, aad jaani siisay, codkaadana aad gelisay, aadna ka heshay oo maanta aad aad iyo aad fankayga u taageertay. Thank you very much aan ku leeyahay adigana. Farakama qodna faa noole, halkaa waan kasii wadi doonaa insha allahu tacaala. De waxaa la yidhi gurbaan ama garabkaada ha kuugu jiro ama gacalkaaga ha kuu haya mugta. Anna waxaan dadka dheerahay inayna adeertay ee erayadeeda ku luqadaysay. Fanaaniinna waan hayaa badan oo kale oo iyagana sidaas oo kale aad iyo aad ii dhiirigeliyo oo jecel inay weliba fankayga qaadaan, sida Nimco Yaasiin oo kale iyo Nafaxaad Nafto kale, fanaanadeena kale Shamsa Food oo kale, fanaaniin qaali oo aan isku wada fognahay jira iyagana maasha Allah aad iyo aad ii soo dhaweeyay. Waxaan leeyahay thank you inta i soo dhaweysay, inta aan soo dhaweynin baanoona tirin karin, mid magacooda u qaadi karin, meel kastoo ay daafaha dunida ka kala joogaan, ha joogaan Somaliland, ha joogaan halkan iyo London, wadankeeni hooyo oo dhinaca iyo Muqdisho, Kenya iyo dholalkaas oo dhan, Carabaha, meel kasta oo ay iga soo dhiirigeliyeen. Waxaan leeyahay thank you dhammaantood. Abwaaniinta sidoo kale oo aad iyo aad iyagana ii dhiirigeliyey oo halkan iyagana aan kusoo koobi karin magacooda, balse waxaan ilaabeyn oon u duceynayaa abwaankayga qaaliga ahaa oo igu dhiirigeliyey 100% inaanu halkan ka noqdo hal abuur ama abwaanad ka noqdo. Cabdixakiin Cabdulaahi Jibriil oon leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala jannatul firdaws ha geliyo, eelkiisana ha xifido meel kastoo ay joogaanba. Marka insha allahu tacaala intaasaan kaga baxayaa. Wixii hadda ka dambeeyana waa inuu YouTube iyo barnaamijyadeeda oo live u badnaan doono, live usoo geli doono insha allahu tacaala. Salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.